ambasador cabdifataax siciid axmed danjiraha cusub ee madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo uu magacaabay inuu u qaabilsanaado dalka Djibouti ayaa dhankiisa ka dareen celiyay xilkan uu magacaabay xiriir soo jireen ayaa naga dhaxay dawladda Jamhuuriyadda Djibouti haday noqoto dhaqan haday noqoto xididnimo haday noqoto wada dhalasho marka runtii maadaama diplomatic koorka aan ku soo jiray in dooro muddo dheer runtii madaxweyne waxaan leeyahay mar labaad runtii arrinka aad u asiibtay waana kugu mahad celinaya waxaa jirta waxyaabo badan oo runtii aan wada qabsan karayno labada jamhuuriyadood bari dhawadan safar ku tagnaa aniga la taliyaha madaxweynaha Khadar Cali Gaas oo laba wiig aan ku maqnay runtii wax badan ayaan ka soo qabanay xiriirka sida madaxweynuhu wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Kaysar Cabdilaahi iyo la taliyaha saxaafadda Khadar Cali Gaas oo garab taagnaa danjirahaasi ayaa iyaguna ka dareen celiyay isla markaana u mahad celiyay xilkan cusub ee loo magacaabay ambasador Cabdifataax Siciid Axmed ugu horeyna waxa bartaasi ka hadlay la taliyaha dhanka saxaafadda Khadar Cali Gaas ugu horeyn waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa dhammaan mas'uuliyiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay ee dhawaan loo magacaabay xilalka kala duwan waxaan soo dhaweynayaa oo leeyahay madaxweyne waad asiibtay ambasador Cabdifataax oo runtii shaqo uu aqoon badan u leeyahay maadaama uu 20 sano iyo dheeraad ku soo jiray arrimahan cilaaqaadka caalamiga wax badanna waxaan ku kalsoonahay inuu ka qaban doono dalka Djibouti waayo Cabdifataax waxaan ogahay inuu fahansan yahay danaha Soomaaliland ka leedahay Djibouti iyo danaha maslaxadda labada dal waa nin khibrad u leh arrimahaas oo dhan wax badan hore uga soo qabtay oo jimcihu uu ka soo laabtay Djibouti wax badan oo qorshaysnaayeen isagoo wasiirka dakhliga agaasimaha wasaaradda dakhliga imikana waxaan filayaa inuu shaqo uu horeba u hayay oo wanaajinta xiriirka labada dal loo siiyay madaxweynuhu madax banaaneeyay inuu halkii ka sii wado halkan inaan uga mahadnaqo saaxiibkay ambasador Cabdifataax Siciid Axmed oo runtii ah danjire u qalma positionkaas muddo dheer ka soo shaqeynayay xiriirka caalamiga dalkiisana wax badan soo shaqeynayay waxaan leeyahay Cabdifataax runtii waxa weeye mas'uul ku haboon muxuu ahaayay inuu qabto noqdo danjireheena inuu fadhiyo dalka Djibouti waxaan madaxweynaha uga mahad celinayaa sida uu asiibay oo ugu magacaabay sidoo kale waxaan fursad uga faa'iideysanayaa inaan u hambaliyeeyo dhammaan mas'uuliyiinta cusub ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u magacaabay xilalka ambasador Cabdifataax Siciid Axmed waxa uu hore u ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland imikana wadanjiraha u fadhiya dalka Djibouti Umar Shaafi TV-ga caalamiga Rayo caasimadda Soomaaliland Hargeysa